iyadoo baryahanba uu socday abaabul xoogan oo ay ku wada jireen ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid iyo waliba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kuna aadanaa ninkii baarlamaanka ku awood bata ayaa guusha dambayn doona waxaana imika soo baxay in ra'iisul wasaare Saacid taasi looga itaal sheegtay haddaba annagoo baryahanba isha ku haynay dhaqdhaqaaqa ka socda magaalada Muqdisho gaar ahaan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa imika idin xaqiijinaynaa in la gudbiyay mooshinkii kalsooni kala noqoshada xukuumadda ra'iisul wasaare Saacid iyadoo gudoonkuna uu xildhibaanada soo gudbiyay ka aqbalay codsigaasi waxaanu u gudbinay gudoonka baarlamaanka mooshin aan kalsoonida kala noqonayno xukuumadda Cabdi Faarax Shirdoon Saacid waxaana ku saxiixnaa 168 xildhibaan kuwaasi oo ka kala socday 5 beelood ee Soomaalida iyo waliba sidoo kale kudlad xildhibaan oo ka kooban 45 oo iyaguna magac qabiil aan ku soconin ayuu yiri xildhibaan aan magaciisa hadda xusi karin xaaladda ammaan darteed gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cawad ayaa mas'uulka qabtay mooshinkaasi waxaana uu sheegay in maalinta Sabtida ay xildhibaanadu ka fariisan doonaan mooshinka laga keenay ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cawad ayaanu gacanta u gelinay mooshinkaasi aan u wada saxiixnay waxaana uu nasiiyay warqadii ogolaanshaha in codsigaasi uu aqbalay laakiin waxaan ku sheegayaa in hadafkeenu yahay in xukuumadda fashilantay wixii looga fadhiyay oo ahayd waxqabad muddadii sanadka ahayd sidii meesha looga saari lahaa ayuu yiri xildhibaanka magaciisa ka gaabsaday sida muuqata waxa ay midani ka dhigmaysaa rajabeel soo wajahday ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid kaasi oo horay madaxweynaha kalsoonida uga waayay una haddana baarlamaanka sidaasi oo kale kalsooni uga waayay doono haddii ay xildhibaanadaasi sii wadaan go'aankooda dareenka magaalada Muqdisho ayaa aad u kacsan yahay waxaana dadku imika la hadasho ay ku sheegayaan in waqtiga ra'iisul wasaaruhu uu dhamaad yahay maadaama hadda baarlamaanka looga yeerayo kadibna kalsoonida kala laabashadiisa imika ay u diyaarsan yihiin 168 xildhibaan dhinaca kale maraa la xiriirnay xafiiska ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid xubno jooga ayaa laftooda waxa ay noo xaqiijiyeen inuu jiro walaac xoogan oo laga qabo saxiixa 168 xildhibaan oo mooshinka keena xukuumadda waxayse ka gaabsadeen inay haatan ka hor dhacaan inta laga gaarayo Sabtida